السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كسودو هذا 10 امتحانها هاي برشاد اللغة بايثون ee aad kala socoteen channelka CR warsame. Sharkeena maanta waxaan uga hadli doonaa haduu alira nested decision structures ama if elif else. Waxaan soo aragnay if kaligeeda, waxaan kala soo aragnay if iyo else. Waxaan hadda arkaynaa haduu alira if elif else statements lida ayaan arki doonaa sida loo isticmaalo. waxaa casharkeeni ugu dambeeyay uu nooga istaagay halkan oo waxaan aragnay haddii aan ever gelino number in ay soo baxayso marna negative marna positive waxayna ku xiran tahay mar walba calaamadan sida aan u kala hormariyo ka weyn haddii aan qoro iyo ka yar haddii aan hormariyo iyo negative-kan iyo positive-kan si aan u xallino taas qaladkii yaraa jiray ama aan dareemaynay aan rabnaa inaan tijaabino ama aan aragno xaaladaha aan halkan heli karno waa meeqa xaaladood kow xaalad waxa waaye numberku inuu eber ka weynaado xaalad kalena waa numberku inuu eber ka yaraado xaalad saddexaad ayaa jiri karto ah numberku inuu eber la ekaado marka laba xaaladood haddii aan ku cabirno xaaladii saddexaad qaab aan u xallino ma lahan marka naguma filno if iyo else halkan if iyo else naguma filno waxaan u baahannahay xaalad saddexaad ayaan u baahannahay waxaan samayn karnaa marka numberkii eber miyuu ka yar yahay hadduu eber ka yaraado waxaa dhahdaa waa negative hadduunan eber ka yaraan marka laba xaalad ay imaan karto laba xaalad ayaa imaan karto halkan meeshii aan dhahayay marka haddii kale sidaas samee aan dhahayay waxaan u baahanahay wax ka duwan sidaas inaan sameeyo maxaan samaynaynaa marka waxaan u baahanahay meeshan aan dhahay elsta aan dhahay inaan dhaho calaamad kala isticmaalaya waxaan leeyahay halkan elif haddana mar kale waxaan leeyahay waxaa weydiisaa number ma ka weyn yahay eber tii hore waxay ahayd number ma ka yar yahay eber eber hadduu ka yaraado negative way dheh haddaba hadduuna ka yaraan haddana bal waaye ma ka weyn yahay eber hadduu ka weynaado positive way dheh haddii uunan labadaasba ayna dhicin oo uuna ka weynayn kana yarayn printi waxaa dhahdaa zero marka laba qabaa loo qori karaa dabcan korna haddaa rabto waa hormarin kartaa ka weynta oo negativeka iyo positiveka waa kala hormarin kartaa laakiin waa isku meeshii hadda fiirsa marka waxaan dhahay number ma ka yaryahay eber hadduu ka weynaado negative dheh number hadduu ka weynaado eberna positive dheh haddii kale oo labadaas ayna noqonina zero dheh marka xaalado badan ayaan markaan oo kale tijaabinaynaa haddaa fiirso waxaan dhahay numberkii wixii la soo geliyey ayaan tijaabinaynaa aan fiirino natiijada iyo sida ay noqonayso markii aan rangareeyo wuxuu dhahay number soo geli numberkii aan soo geliyey haddii uu noqdo 6 ama 6 iyo 6 iskale waxaan dhahay positive waaye haddii numberka aan soo geliyo dabcan waa positive kii hadda aan geliyey haddii uu noqdo -9 na wuxuu leeyahay waa negative this time haddii aan geliyo 0 wuxuu leeyahay sida aan rajaynayay 0 waaye negative iyo positive labadaba ma aha marka maxaa noo fududeeyay halkan waxaa noo fududeeyay if elif else oo ah saddex statementi oo kuu suurtagelinayo haddii ay bataan optionska wadooyinka hadday bataan haddaad waxaan haysanay laba wado hadda laakiin wadooyinkii ayaa intaas ka batay taas ayaa noo suurtagelisay inaan dhihi karno if elif iyo else inta waa kasii badan karaan mararka qaar dabcan haddii hadda aad fiiriso if su-aashii koobaad waaye elif iyo else waxaa kaloo u qori karnaa si xoogaa sidaan ka duwan aan hoosteeda ku qoro ama korkeeda aan ku qoro tusaale ahaan halkaan imaanaya waxaan dhihi karaa if number uu ka yar yahay 0 printi waxaa soo daabacdaa negative meesha elif aan isticmaalay waxaan dhihi karaa haddii aan rabo else haddii kale mar kale waxaan soo celin karaa if number uu ka weyn yahay 0 numberku hadduu eber ka weynaado printi waxaa soo daabacdaa positive else haddii kale oo sidaas ahayn else aan ka wada halkan else haddii aan sidaas ahayna printi waxaa soo daabacdaa 0 haddii aad fiiriso markan kan hoose iyo kan kore waa isku mid labada qaabkan haddii aad fiiriso if number uu ka yar yahay eber waxaa dhahdaa sidan else haddii kale inta haddii true noqoto marka intaa la fulinayaa haddii false noqotona else taa la fulin jiray soo maahin if else oo kale waa hadda ay u dhintaa else haddii la fulin jiray else marka la yimaado else maxaa ku hoos qoran haddana if else kale haddana tanaa la jeegaraynayaa su-aashan marka inta hore haddii la iska indhatiro oo la fiiriyo oo keliya intan waa if else inta haddii la fiiriyana waa if else marka waa if else la isdhexgelaya la dhahaa nested
if else ayaa la markii qaabkan loo qoro nested if else qaabkan markii loo qoro iyo qaabkan hoose markii loo qoro waa isku mid labadaba isku natiijo keenayaan haddii haddaba aan tijaabino control x la kan waa tirtiraya si ku biisanaya si aan u soo ceshan karo haddii uu tala galo haddii aan naho execute wuxuu leeyahay number soo gali 6 ayaan nahay wuxuu leeyahay san rajaynaya positive haddii aan naho waxa soo gelisaa number negative ah waxaan leeyahay -4 wuxuu leeyahay negative haddii aan geliyo eberna sidoo kale ayuu ii sheegayaa dabcan 0 ayuu leeyahay marka labada qaab waa isku meeshii laakiin qorista qoraalka iyo siday u qoran yihiin ayaa kala duwan waana kala quruxsan yihiin hadda daa fiirs halkan waxa ay sameynaysaa inay aad isu dhex gelisay hoos ayaa la soo aaday hadda else ka imaan lahayd ama if kale hoos ayaa hadda la sii aadi lahaa oo indentationka uu sii badan lahaa kan laakiin hadda fiirso uu kooban yahay sadaraduna way dhow yihiin indentationkana aad ayuu u kooban yahay haddii aad fiiriso marka qaabkan dambe ayaa markii ay dheertaa badanaa la isticmaalaa laakiin of course daarta sidana waa isticmaali kartaa nested if else ama if elif else labadaba waa isticmaali kartaa tusaale kale oo xoogaa faahfaahsan ayaan ka bixinayaa inta aan ka bixin xiisada oo muujinaya if else t iyo nested key iyo key art labadoodaba waxaan leeyahay mid cusub iyo abuur waxaan leeyahay halkan grade waxaan rabaa userka inaan dhaho hore waxaan usoo aragnay buundo markuu soo geliyay inaan dhihi karno waa baastay iyo waa dhacday waxaan rabnaa hadda intaa ka badan in aan weydii karo oo aan dhihi karo haddii qofkan keenay wax 9 ka badan e dheh hadduu keeno wax 8 ka badan b dheh hadduu keeno 7 wax ka badan c iyo wixii la midka ah ilaa f oo ah tusaale ahaan konton wixii ka hooseeyo wuu dhacay oo kale in aan dhihi karno waxaan leeyahay marka program to calculate program xisaabinayo grade of a student arday gradekiisa marka waxaan qaadanaynaa ardaygan isku celceliskii la soo sameeyay averagekii in la siin doono oo kale ayaan leeyahay waxaan leeyahay score waa buusiinaya is equal to scoreka ay soo gelayaan dhahay buundada uu soo gelayaan fiirinaya marka هذا في البرنامج كان wuxuu ku tusayaa userka waxaan number soo gali numberkii uu soo galiyay ayaa halka ku shubnay waxaan leenahay numberkii ma ka weeyahay 9 ku weynaado ee soo daabac hadii kale waxaan dara fiirinaya numberkii tijaabi hadduu ka weynaanin 8 ma ka weeyahay walba hadduu ka weeyahay b dheh grade ka dabcan grade ku waa b grade b hadii kale 7 ma ka badan yahay grade c dheh hadii kale 6 ma ka badan yahay grade d dheh hadii kale 50 ma ka badan yahay grade e hadii kale grade F ama fail oo kale ay hadaa fiirso marka if else marka isticmaalno oo soo la laabanayso ama nested if else wuxuu ku tusayaa in uu programkii indentationkiisa uu badanayo oo sidoo kale programkiina uu aad u soo dheeraanayo hadii aan isku dayo halkan oo execute wuxuu leeyahay score soo gali aan gali tusaale ahaan 91 waa arkayna dhamaan qiimayaasha aan tijaabinayna wuxuu leeyahay a ayaa keentay haddii aan ku celiyo oo aan dhaho waxaan keenay 87 wuxuu leeyahay grade B ayaa keentay haddii aan dhaho 76 wuxuu leeyahay grade C haddii aan dhaho 65 grade D haddii aan dhaho 51 E haddii aan ka yar sheegana dabcan wuxuu dhihi doonaa waa dhacday oo kale grade F ayuu ii sheegaya marka programkan haddii aad fiirso markii aan qoray if iyo else nested if else aad ayuu u dheer yahay oo shaqo dheer ayuu noqonayaa aad u tiro badanayaa haddii aan isla isaga rabo in aan ka dhigo if elif else haddii aan ku isticmaalana intaan wax badan ayuu ka gaabnaan karaa waayahay isla programkeennii hadda ayaan dib u qoray haddii aad fiiriso sidan ayuu ahaa keenii dheeraa
if iyo else iyo if nested if else waxaan ku sheegnay sidaas ayuu isu hoos galayay ilaa 18 sadar waxa ka daran sida uu indentationka hadaa fiirso printigan inta ay ka soo baxayso fiiri inta ay u jirto spaces badan ay soo baxaysaa taas marka waxay keeni kartaa qofka especially markuu ku cusub yahay in uu qalad uu galo kala sikanaantan iyo wixii la mid ka maadaama Python indentationka ay isticmaasho isla isagii oo version kala ah haddii aad fiiriso aad uga kooban yahay aad ayuu uga quruxsan yahay isla shaqadii ayuuna qaban doonaa dabcan haddii aan dhaho execute waxa aan leenahay sidii oo kale waxaa gelisaa 92 waxa uu ku dhihi doonaa dabcan grade A haddii aan dhaho 86 grade B 75 C 62 D conton E oo dabcan pass haddii aan wax ka yar sheegana wuxuu dhihi doonaa F marka hadda fiiriso labada qaab waa isku mid kii aad isticmaali kartaa laakiin badanaa kan ayaa ku fudud ku kooban kuna degdegsiin badan intii aad indentation badan iyo say soo galaan iyo aad ka fikir lahayd markan ayaa isleeyahay kan isticmaal doonto noqonaya intaas ayaa ku soo gabagabeynaa casharkeena waa mahadsantiin assalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh